حالي صقد محاول على عدو وقت الضمباء أفرتي بركي منك أخواري تلقى وين قصة قائم بالمنو غريوري جاران حسيسك بالمدى يسلقي يماشي محاول على فرح مجاله يماشي سوق وضمب المركز على اللي المركز الحمد لله منك صوص محاول على وحان فناني عيدك الديغانك أو هالكا قررنا عام صومة ثلاثة وبحضي dhinac bay bridgekay soo gudbeen oo magaalada oo dhanba maxaa ku radaa ciidanka deegaanka ayaa meesha joogay kadibna maxaa ku radaa ciidankii ayaa maxaa ku radaa si fiican maxaa ku radaa nimanka isaga caabiyey oo nimankii maxaa ku radaa khawaariijta halkaas gabi halaaga ka raacay waxay la rabeen sida laagi iyo ay u galeen maxaa ku radaa iyo meelaha kale iyo ay la rabeen runtii laakiin ilaahay macam muusan dhihin halkaas ay ayaga laftigooda meedad badan bay uga carareen kulliitaba maxaan ku radaa khasaarin waa jirin khasaaro intuu leeyahay markaa anaga xaggeena runtii askar waa noogu dhinteen askar waa noogu dhaawacaan kulliga dhaawacii kulliitaba waxaan usoo qaadnay dhinaca muqdisho waxaan u mahad celinaya runtii un-ka ama amisom inay nagu caawiyeen diyaaradaha helicopterka taas iyo ku radaa haddana ayagiina 24 meed ayaa laga tiriyey runtii maxaa ku radaa waxaan leenahay marka halkaasi jabi halaaga ka raacay marka waxaa meesha ka soo baxday marka in ciidamada Soomaaliya ama kuwa deegaanka ama local force kuwa liidada ama kuwa deegaanka macnaha ama local police inay ka tagayaan yihiin runtii ama ka runtii dagaal fiican yihiin ayaa meesha ka soo baxday waxaan ku amaanayaa runtii ciidamada deegaanka ama local police-ka runtii aad iyo aad ammaanka shacabka iyo deegaanka say u ilaaliyaan aad baan runtii aan ugu faraxsannahay taasna darsi bay noqotay oo hadda waxaan rabnaa insha allah ana la kaashin runtii madaxweynaha koonfurta dalka Soomaaliya in degmo walba ciidamo maxaan ku radaa oo deegaanka ka soo jeeda inaan u abaabulno insha allah ku daydaan kuwa qoriyay laakiin haddii ciidamada beelaha la hubeeyo ma dhici kartaa in ay beelaha laftoodu mararka qaarkood isku dhacaan qaab oo beel ahaan ma aha waa ciidan oo maxaa ku radaa dadka deegaanka oo dhanba maxaan ku radaa kasoo jeeda oo hal beel kalima laba beel maaha saddex beel maaha kadibna waa la sharceeyaa dress gooniya ayaan u talnay oo local police ay ku qoran tahay booliiska deegaanka saaligeeda liiskoodii kulliitaba ugu soo jira maxaa ku radaa kumanda booliisiya in maxaa ku radaa sharciyan sharcigoodii hadda miisku saaran yahay laakiinse maxaa ku radaa ciidan hadda mishaar qaata maaha laakiin waxaan rajaynaynaa mar dhow macnaha in saldhigyadoo dhanba warqad ka soo baxday taliska booliiska ayay jirtay sanadka hore oo oranaysa dowladda dhexe oo oranaysa macnaha in saldhig walba 35 ilaa 50 ciidan deegaan in loo qoro macnaha waa deegaanka dadka degan waay ila dadkaana dad waa maxaa ku radaa jasiirada waaqwaaq iyo Macedonia laga keenay maahana waa dad maxaa deegaan ku dhashay oo ahlul maka hum adrak min sha'aibiha macnaha ilaa reer maka ayaga dadka iska yaqaan watii rasuulka alayhi salaatu wasalaam markii la qabtay maka uu yiri saas ay ka dhigan tahay macnaha dad qof laga keenay macnaha gurceel iyo dhismasaadi ama garow iyo burci iyo tifsi iyo malaytin waragaari iyo maxaa ku radaa iyo maxaa ku radaa doolow kuwa deegaanka u dhashay ayaa kaga aqoon badan oo cadow yaan cadow yaa argagixisay aan argagixisay intii ku dhumanaya yaa martigelinaya macnaha kuwan ayaa maxaa ku radaa in xoog la saaro faa'iidin hadda waa soo baxday ciidan aan amisom on safka hore ku jirin ayay dhifisku hore ku jiraan oo maxaa ku saas isu difaacay waa markii hore soo dhacday taariikhda kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Sidi oo u waramayay Xuseen Barre Aadan